sifooyinka marka laga rabo Sheekh Rashid dhowr buu sheegay uu sheegay kadaba tajimaayo oo tacqiibinayo laakiin waxaan ku darayaa ana laba saddex kale ayaan ku darayaa تكوّن وحوية قف كهرجان كهيوان وياه قف حكيم حكمتنا وحوية إن وضد كدر هذا كشقين اليوم أمور ترى ماشي أيكوها بوني ودي اليوم حكمتنا إلهي سبحانه وتعالى وحكم النيستي خصوصي سا يضد كوج على إلهي وحنا ليه أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وإلهي ليه وحنسيني إبراهيم يأهل كيسيبا حكمة هي كتاب بانسينا كتاب نواسينا حكمة نواسينا إن إلهي إسقو ضري كتاب كي حكمة ده ووح آد مهمة وحنو نجران كرنا وإلهي تصالي رجع سوق عضي مركي ولده ذي نيجي جالك أها وح ويري إلهي يحبود الله وحنا وان عليا مركي كوير وحيري أبو وحبان الله وحبان عليا وجودن بيو وحيري إلهي سبحانه وتعالى عد عدا بري بكسو صاراي هذا ذي إله تهاي أود إله لا يضحي أذيك قلبيت كسوعلي إله عرف به الذي كفر وحوريري ولجأت كاذي كي قالوا بي وحكى الله جرب أمريكا وإنه يقف حكيمة أو جرانكرا وحي كهبون يمشي كهبون جرانكرا أو عدو البابا مشي كهبون تهاي نيجي كرا وإننا نوران ولا قطع المهدودي سفوية كنا لجرب وحوية إنه هاي السوق السوني dhammaystiran ilaahay baa u ballan qaaday dadka muuminiinta inuu gargaarayo qofkaana wax laga rabaa hoggaanka in uu naftiisa ku kalsoon yahay ummadiisana ku kalsoon yahay sidii hadda uu sheekhu sheegayna talada uu la wadaajiyo laakiin hadduu taladii dadka ka qarsado kalsoonida isagu uu naftiisa ku qabaana ay yaraato ta ilaahay uu ku qabaana ay yaraato waa qof aan waxba qabsan karayn ayuu noqonayaa nabiga kaleey salaatu salaam oo adeerkii uu ku tiirsanaa markii la hadiday dhibta ay ku tira badatay ee adeerkii uu yimi ee yiri waxaan rabaa inaad waxan yaraysid waayo ummadii waa isla dhibaatoonay ama aad waxan ka noqotid waxa uu ku yiri nabiga kaleey salaatu salaam haday cadceeda midigta ii saaraan dayxana bidixda ii saaraan kama noqonayo ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa uu dhameystirayo waxa ka mid ah sifooyinka laga rabay maanta yaraaday ee dadka Soomaalida iyo madaxda Soomaalida ku yaraaday balanta in la oofiyo iyo in abaadka la balanta in la oofiyo waa dhaqan wanaagsan maanta cid walba ololeynaysa haduu yahay musharax xildhibaan haduu yahay mid wasiir raajicinaya haduu yahay mid xildhibaan gole deegaana hadii uu yahay mid madaxweyne doonaya dhammaan wax la sheegaya ballan qaado wada aad u qurux badan iyadoo cid walba laga eegayo meesha ay u nugushahay laakiin hadhowdii sida ay tahay looma fuliyo bal aan eegno xadiiskan rasuulka kaleey salaatu salaam saxaabigiisii loo oran jiray Hudayfa ibn Yamaan waxa uu leeyahay dagaalkii Badr kama aan qayb gelin sababka aan uga qayb gali waayeen wax weeye aniga ninka la yiraahdo Abu Husayl ayaa gaaladii Quraysheedna qabatay dabadeetna waxay yiraahdeen Muhammad baad u socotaa anana waxaanu rimaya waxaanu u soconaa Madiina dabadeetna waxay yiraahdeen ballan nala gala kalsoonina nasiya markaad aadaan Madiina inaad soo noqonaysaan Muhammad aydan la soo dajaal jileen ballantiina waan siinay rasuulka markii aan u nimi kaleey salaatu salaam oo ciidankiisu aad u yar yahay 313 uu wato gaaladuna 1000 iyo siyaado ay yihiin waxa uu yiri ballanta u oofiya gaaladii aad la gasheen anagana ilaahay baan tala saaranayna ballamaha in loo oofiya marka waa arin runtii aad muhiimad weyn u leh qofka madaxda ana ku sii mudan wixii ballan uu qaaday in uu oofiyo hadii kale marka hore bay lama khasbine maxaa ku kalifaya waxaan u qaadi karay waa soo ururinaynaa wax la rabaa oo kale to inuu yaqaano umadu wixii ay u tartay waa inuu wax ku soo celiyo nabigeena kaleey salaatu salaam maalintii maxaabiistii Badr uu qabqabtay waxa uu yiri حديث بخاري ورياي صحيحة لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النطرة لا تركتهم له وحيدي نيكي لو أورنشري مطعم بن عدي حدو ما أنت نولان لها حلي قال لح بلاد أما تضرب بلاد كاربو جيريودي حدو ما أنت نولان لها أو محابيستا أوريسا يقول لها لها وران لها إيسي دا لما أنت ودوا أوسيدين لها أنا جوا وحبك قاعدا سبب كنا وحوية نبي عليه الصلاة والسلام مركب ضايف عادي وصون نقضي
quraysh waxay u diideen inuu magaalada soo galo dabadeetana ninkaas ayaa yiri aniga ku soo gal wajigayga iyo sharafkayga ku joog magaalada marka abaalka isagoo u haya ayuu wuxuu leeyahay waxa aan waa u sii dayn lahaa wax kale oo la rabaa in uu leeyahay qofka hoggaan ummad noqon karaa inuu garasho fiican leeyahay iyo aragti dheer oo aanay aragtidiisu soo gaabnayn markii aragtidiisu ay qofka sareyso iyo garashadiisu waxa uu noqonayaa in ummadda wax u tara oo hoggaan fiican ah waxa kale laga rabaa oo kamid ah sifooyinka laga rabo inuu yahay qof dhiiran waayo maadaama ummad madax u noqonayo waxay u baahan tahay go'aan qaadasho go'aanada qaybtoodna waxay u baahan yihiin adkaysi iyo ku dhiirasho sababaha haweenka looga dhigi waayay madaxweyne ee sharciyadu ugu diiday wax weeye iyo xaakim labadaba go'aanada la qaadanaya adag wax laga yaabaa inay ku dhiiran karin hadii la yiraahdo cid baa la qisaasaya oo la dilaya waxa dhici karta inay baqdo tiraahdo Allah anigu qisaas taay kari maayo saadarteed baa loogu diiday qofkii aan dhiiranayn ee go'aankiisu uu jilicsan yahayna waxa la rabaa in uu isaguna marka hore qiyaadada iska ilaaliyo wabitaali hadii uu yahay mutadarrif aad u adagna lama rabo rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam abi dar waysay kulaha ya abadar innaka rajulun dha'if la tas'al al-imara waxa tahay ni taag daran dadka haweydiisan imara ضعفيس wax la yiri wuxuu ahaa mushaddidnimo ma ahayn xagga xooga wuxuu ahaa mushaddidnimo iyo inuu yahay nin afkaartiisu ay tahay afkaar aad u adag ila markii dambe uu baadiyo u baxo oo kaligi uu maartay meel cidla uu ku geeriyo sidii rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam uu inoo sheegay inuu kaligi dhiman doono kaligiina la soo xashrin doono marka wax la rabaa qofku inuu yahay qof ummadda maartay u turaya u danaynaya aan ka danaysanayn waxa la maamulaya waa dad waa hantidood waa in dadka iyo hantidoodaba loo turaa laakiin aan laga danaysan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh runta cilmi baaris iyo horumarinta hadaf